dhulkan Eritrea u taqaana laakiinse Ilaahay quraankiisa wuxuu ka yiri Nabi Saalax baan u soo dirnay dadkiisii Taamuud oo ku dhahay Ilaahay ka baqam geelan meesha joogana waxba dhibaato ha u geysanina hana uloobin inaad ka dhaxasheen caad oo waliba xataa buuraha aad ka xoqdeen casriyo khatara buuraha iyo casriga iyo awoodda khatarta la sheegay ma halka dhagax bana halka dhagax ee ku dhex yaala Carabta waddanka Sacuudiga maanta la dhaho oo labadaas jaranjar lagu koraayo gabi ahaantiisa ba halka dhagax see ku dhici kartaana inay hadda Jordan oo daaro ka qurux badan laga xoqay buuraha inay Sacuudiga ka sheegtaan oo waliba la dhaho waa guriyihii Taamuud iyo ku xoqeenba amaba Slovenia oo waddan Kristiyaana ay ka laftigooda buuraha si khatar ah uga dhisay guriyo ka khatarsan xataa Sacuudiga iyo Petra Jordanba iska badaa Kristiyaanka iyo Carabta xitaa India ee Lora meeshaas kaliya kuma eekan oo ilaa Turkiga xitaa laga helayaa Ethiopia Lalibela ilaa United States of America Cliff Palace oo cajiiba ay xitaa buuraha laga xoqay guriyo ama casriyo khataraba hadal iyo khiyaali inagu daalimaayeen hal dhagax oo laba jaranjar laga taalay aqrigal ma aha inay Taamuud dhisaan oo waliba awood ku sheeganayeenba waa qasab inaan u guda galnaa kitaabka laftigiisu wuxuu ka sii waramaya cadeemo kale ama raadraac ma leedahay sidaan u helno keebaa noqon doona sarta ama dhagaxa ama buurtaba laga hadli doono fashilada koowaad waxay noqonaysaa aayadan oo sheegaysa inay Taamuud ahaayeen dadkii rasuulada diidi jiray ama beenin jireenba taas oo fashilinaysa laftigeeda inaysan carab ahaan kareenba waayo carabta diin nabi maxamed ka hor maysan haysan looma soo dirin wax rasuula iyo wax nabiyaba ilaahay baa taa quraankiisa ku sheegayna waxaan kale u sii guda galaynaa deemaha dhulkaas maxaan karaanba nabi saalax baa ku yiri waxaad u maleynaysaa inaad weligiin ba haysan kartiin badbaadadan eeni ooleyso dhulkan nimcada taala nimcadaas maxay tahayna meel janno weey meeshan ama garden beer ka baxaysaba oo walibana balli ku yaalo balligana waxa ka baxa areeraagiisa cadeynta ugu dambaysa waxa weey waa dhul beeraleeya oo timir ka baxayso oo khudaar ka baxayso oo wax walba ama macaana oo beeraha ka baxaba laga helayo meeshaas ay ku oli kartaan cadeemaha waxaan ka raadinaa Tigreenia ninkan meesha uu saaran yahay waa aragtaa sida u qurux badan ee barwaaqo cagaar u tahay markaad buurta ka fogaati inta leeg tahay oo waliba daloolo ku yaalaan oo siday wax walba uga baxayna waa aragtaana inta kaliya aysan kugu filnaanin cadeemo kale aan u baahanahay marka dusha saa u eegto waxa ku muuqata inay meel cajiib tahay oo buuraha laga dhisayo guriyo ee ku yaalaan oo waliba xitaa kibir iyo isla weyni awgeed ee ahayn meel loo hooyanayba dhulkaas waa dhul uu geel ka daaqi qaraba geeli laftigiisa uu nabi saalax ku yiri geelan u daaya maalintiisa uu balliga wax ka cabayo balligii laga waayay way xadda Sacuudiga ma laga heli doonaa xaggan dhulkan of course waa laga helayaa bal meesha eeg meeshaas weeye haddaba meesha webi maraayo oo balliya oo geela saalax uu tilmaamay yaa dhawaato loo geysanin uu ka cabayo wax waa isla meesha laftigeeda haddaba dhulka uu Taamuud ee ka dhiseen guriyihii cajiibka buuraha ee Sacuudiga maanta si fudud rabaa inay u xadaan iska daaba inay dhulkan xadaanay xitaa adiga taariikhda bay xadaayeen marka laga hadlayo taariikhda masaajidada ugu da'da weyn adduunka sanad ka hor adduunyada masaajidada ugu da'da weyn waxa ku oli jirtay taariikhda inay Soomaaliya saylac qiblateenka listiga number 1 ka ahaan jirtay ayadoo Eritrea iyo Ethiopia ku yaalaba maanta se masaajidkan ku yaala Muqdisho la soo galiyay kii saylac waa laga saarayba awoodda looga saaraya meesha wax kale ma aha waxa weeye taariikhda la rabaa in mugdi la geliyo Sacuudiga ay maanta ku yaala masaajid la dhaho qiblateen oo raba inuu kan saylac hadhow magaciisa bedelo dad kale u loo siiyo sabab kale oo loo xaqirayo taariikhda ma jirtee waxa weeye inaad gabi ahaanba ayaka u daba safatay oo ku dhahan diintan ka xigsanina ayadoo aysan saahayn ee tahay diin adduunka iyo dadkoo dhan loo soo diray loogu tala galay cidna cid kale u daba safaneenba masaajidka kaliya oo ogol yihiin Afrika inay ka dhistaan jirto waxa weeye masaajidka xadiidadooda uu aqbalayo inay u soo baxsadeen nabad ka soo doonteen laakiin run ahaantii sida Saylacba iyo Ethiopia masaajido ka qadiimsan ayaaba hore u dhisnaa inta masaajidadan la dhisinba ayagoo xitaa kuwan ay ka horeeyeenba Makka iyo Madiina iyo meel walba oo adduunka masaajidada Carabta ku haystaaba muuqaalkan waxaan ku soo gabagabeynayaa aqligaaga haddii xitaa aad isticmaashay ma kula tahay inay laba jaranjar halka dhagax ka dhiseen Taamuud oo adduunka dhan wacdaro uga dhigeen isagoo Ilaahay sheegay awood bay sheeganayeen mise waa suurtagal inay Taamuud ku taalo geeska Afrika meesha loo korayo xarkaha oo cajiibka oo mucjisada oo si fudud loo joogi kareenba gudaheedana 70 mitir ilaa ay cirka gaarayaanba qofku markuu dhex tago jinac ku dhex noqonayo sida loo sawiray waxa kalarka la mariyay dahabiga dad walba iyo cid walba adduunka meel walba ka yimaadaan la yaabaan laakiinse oranba waxay ka mid tahay mucjisooyinka adduunka waayo wala yasaya Afrikaanimo awgeed muslimiintuna ma sheegan karaan inay tahay caad iyo Taamuud
dadkii wixii ka dhaxlay oo buuraha wax ka dhistay maadaama Etoobiyaanku sheegteen ayna dhaheen waa dhul iyo dad Christianity-ga haystay videoga waxaan rajeynayaa inaad save garaysatay ku ceeshatay markaad ka dheregtay fahantina inaad dad kale u sii share garaysay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh